sharaf noo ah ka hay'adahan hay'adda aqoonsiga ee diiwaangelinta qaranka inaanu ka soo muuqanno hortiina oo aanu fikirkiina iyo aragtidiina iyo taladiina iyo tusaalihiina aanu dhageysano kadibna aanu ku biirino shaqada aanu wadno hadda ee aanu u hayno qaranka Soomaaliyeed marka ID-gu dadka Soomaaliyeed ma garanay laakiin hadda sidii aan ugu celcelinay waad aragteen page-kayga Facebook-ga waxay dadkii nala soo fahmayaan faa'iidada ku jirta in uu qofku qaato kaarka aqoonsiga qaranka sababtoo ah waxa laga yaabaa inuu qofku horeba uu aqoonba maxaa faa'iido aan ka helaya haddii aan safafka dhaadheer aan galo faa'iido ka helaya waxa weeyaan in dhammaan adeegyada dawliga iyo kuwa private-ka ay gaarka loo leeyahayba uu si fudud ugu heli karo oo qofka waxa dhici doonta maalin aan dhakhtar aan iska daweyn karin ilaa iyo kaarka aqoonsi qaran aad leedahay number ku gooni aad leedahay gaari aanad raaci karin oo dalka gudihiisa safar karin diyaarad aanad raaci karin oo aanad maaragtay banaan u bixi karin liisan aanad qaadan karin sidoo kale aanad samaysan karin maaragtay akoon adiga ku gooniya oo maaragtay adigu aad isticmaashid EVC iyo maaragtay simikaad iyo hadalkiisaba daayiga sidaas oo kale iyaguna aanu qofku aanu kaar qaadan karin ilaa uu kaarka aqoonsi haysto marka waxyaalaha loo baahan yahay waxa weeyaan inoo fududeynaya inaynu maaragtay aan isleeyahay faa'iidada ugu weyn ku jirta waxa weeyaan inuu qof kasta oo Soomaaliya oo u baahan in adeeg loo qabto qof adeeg ka maarmaa ma jiraan mareynaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed in qof kasta marka uu qaato kaarka aqoonsiga runtii maanta waxay noo tahay farxad gaar ah haddii aan baahda jaamacadda Banaadir inay noqoto meeshii ugu horeysay ee lagu qabtay dood wadaagani looga hadlayo muhiimadda ay leedahay aqoonsiga qaranka jaamacaddu waxay ka mid tahay hay'adihii ugu horeeyay ee bilaabay isdiiwaangelinta ee ka soo shaqeeyay mashruucan qaadashada aqoonsiga qaranka oo muddo ilaa 8 usbuuc ay hay'addu deganeed xarunta jaamacadda Banaadir lagu soo dhaweeyay qalabkooda ay la yimaadeen oo ay diiwaangeliyeen dhammaan ardayda macallimiinta shaqaalaha iyo wixii kale oo ka faa'iideysan karo muddadaasi runtii ahaayeen dadkii bilaabay isdiiwaangelinta barnaamijka oo dadka gaaray milyanka qof dadkii ugu horeeyay ee laga diiwaangeliyay xaruntan runtii waxaan leeyahay waa barnaamij aad u fiican weeye ما maxay muhiimadda aqoonsiga qaranka uu leeyahay muxuu tarahayaa waxa sharaxay maareeyo ku xigeenka ayaa sharaxay runtii waxa weeye waa aqoonsi rasmi oo qofku lagu aqoonsanayo jiritaankiisa inuu yahay Soomaali